Asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu daawadayaal waa Shubaal Media waxaanu halkan ama kaliibkan idinku soo gudbinaynaa warbixin yar oo kooban aanu kaga hadlayno fanaankii reer Mareykan ee aadka u codka macaanaa waa fanaankii Axsaab Cusmaan halka uu fankiisii ku dambeeyey iyo waxa fanka ka reebay. Haddaba sidaynu wada ognahay Axsaab Cusmaan oo ah fanaan da'yar ayaa waxa uu qaaday heesa aad iyo aad dadku u jeclaysteen sanadihii 2014 isagoo ay dadku aad heesiisaas u jeclaysteen ayaa fanaankan da'da yar waxa uu ku milmay amaba uu dhexgalay fanaaniin kale oo reer Mareykan ah kuwaas oo ay u arkayeen inuu fanaankan soo baxay uu yahay fanaan aad uga cod fiican amaba heesaha uu qaaday yihiin kuwa aad iyo aad soo jiidasho u leh. Sidaa awgeed ayaa waxaa la sheegayaa in uu fankii uu la soo baxay iyo codka aadka u sameeyay inay fanaaniintii kale ee uu saaxiibada la ahaa sida fanaanka isna reer Mareykan ee Dalmaryare iyo fanaaniin kale oo isugu jira rag iyo dumarba ay u arkeen inuu yahay ninkani mid aad iyo aad u soo baxay ahna nin kaalimaha ugu sareysa xagga fanka ka geli kara iyagoo uu ka mid yahay fanaaniinta uu ku dhex milmay fanaanka isna la oran jiray Cumar Shooli iyo Dalmaryare oo iyaguna ahaa niman aad u saaxiiba ayaa waxa ay soo sheegayaa inay fanaankan la hareen amaba ay ku sameeyeen hoos u dhac si aanu fankiisa kor ugu kicin amaba aanu noqon fanaan iyaga ka horeeya iyagoo ay fanka sida la wada ogyahay qaaradda Mareykanka fanaaniinta ku nool yihiin kuwa isximiya amaba isreeba amaba aan isu ogoleen libinta iyagoo dabeecad u noqotay aad u joodaan xilliga uu heesayay heestaasi waxaa dhinacyadiisa taagan amaba ciyaaraya waxa weeyaan Dalmaryare Cumar Shooli Oodan Cabdiraxmaan kuwaasoo guud ahaantooda loo sameeyay inay suxul ku reebeen si aanu ninkan u soo bixin fankiisana aanu horukac u yeelan iyaga oo loo oran karo daaqada ayay kala baxeen sidaa darteed ayaa waxa uu isaga hargabay ahaanba fanka isagoo aanan kasoo muuqan saaxadda fanka isagoo ilaa iyo waqtigaas aanan lagu arkin inuu soo qaaday wax heeso cusub. Haddaba tan ayaa waxa ay iska tahay mid aad ka ah qaaradda Ameerika iyagoo ay fanaaniintu reebaan fanaaniinta kale ee ka codka macaan amaba ee dadku heesooda u qaada ninkan heesihiisii yaraa ee uu qaado 2-3 ahaa ayaa waxa ay yeesheen kuwa aad u soo jiidasho leh ama dadka Soomaalida meel kasta joogaan aad u dhageysteen views badan uu helay heesihiisa marka la isku daro fanaaniinta haddeer ku jira ee Dalmaryare iyo Cumar Shooli ilaa iyo haddeer ma gaari karaan ayaa la oran karaa 3-4 heesood u qaaday inta daawatay ma ayan daawan guud ahaan heesooda idil.